bismillaah casharkan waxaan ku baran doonaa sida loo save gareeyo file html. cashirkii hore waxaa uga soo hadalnay waa maxay html iyo sidoo kale waxyaabaha aan u baahannahay ee toolska ama softwareska aan isticmaalayno ayaan uga soo hadalnay. Okay, si aan file u save gareyno waxaa u baahannahay in aan soo kicino text editorka aan isticmaalayno ee aan ku qori lahayn koodka html-ka. sidoo kale waxaa aad u qurux badan wax walba ee files aa abuurayso adiga in aa u samaysato folder in aa u samaysato. Okay, waxaa tegi doonaa computerkayga meel ka mid ah desktopka ayaan imaanayaa meel bannaan right click kadibna waxaan leeyahay new folder waxaan ku qorayaa xagga html. dhammaan fileska html ee abuuri doona waxaan ku shubi doonaa folderkaas. Okay, waa iska soo xirayaa filekan waxaa imaataa searchiga ama start menuga waxaa ku qortaa text editorka magaciisa sublime text laba mar click si waxaa lagu soo furay text editorka aan isticmaali lahayn. si aan filekan u save gareyno laba nidaam aan isticmaali karnaa in aan tagno file kadibna aan dhahno save iyo inaan isticmaalno shortcut oo ah Ctrl+S inaan isticmaalno. labada nidaam waa u save gareyn karnaa. waxaan isticmaalaynaa marka file kadibna waxaan leenahay save. waxaa dooranaynaa positionka aan ku save gareyn lahayn desktop. waxaa dooranaynaa folderka html double click c kadibna filekaaga magac ina ula baxda laga rabaa. halkaas waxaa ku cad file name. filekan magaciisa waxaa u bixin doonaa index. every program walba wuxuu u baahan yahay extension wax loo yaqaano. html extensionkeeda waxaa waaye .html. extensionka wuxuu suuro gelin doonaa browserka wuxuu u sheegi doonaa waxa la rangareynayo inay yihiin html. every program walba nidaamkaas u baahan yahay. kadibna waxaa dhihi doonaa save ayaan dhihi doonaa. file namekeena waa ka index.html. okay, waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad aad uga bogateen. asalaamu calaykum. waxaa inoo ballan ah cashirka xiga insha allah.